Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaad kanaalka Kobciye. Waa ku faraxsanahay inaad nagu xiran tahay oo aad had iyo jeer la socoto xogaha aan halkan ku soo gudbino. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar kanaalka kadibna gambaleelka furo si ay markiiba kugu soo dhacaan waxyaabaha aan soo gudbino. Hay'adaha sirdoonka ayaa ah safka koowaad ee difaaca looga hortago khatarta ka iman karta gudaha iyo dibadda. Waxaa loo xilsaaray inay soo ururiyaan xogo laga helayo qaabab kala duwan oo basaasnimo ah. Waxa kale oo ay dawladda kala taliyaan arrimaha amniga qaranka, faafinta macluumaadka been abuurka ah, iyo marka la eego hay'adaha qaar oo xitaa iyaga fuliya dilal qorsheysan. Laakiin qaar ka mid ah hay'adaha sirdoonka ayaa ka wanaagsan kuwa kale ee caalamka ka jira. Hay'adahani waxa ay ku xirnaan doonaan go'aanada guud iyo waxqabashada dhibaatooyinka si dhaqso ah. Ku dhawaad dhammaan wakaaladaha sirdoonka ee aan xogta ku hayno waxa ay badanaa la tacaamulaan hanjabaadaha dibadda. Marka ha filan in aad aragto wakaalad sida hay'adaha amniga qaranka ee NASA ee dalka Mareykanka iyo sidoo kale hay'adda amniga federaalka ee FSB ee dalka Russia qaab caynkaas oo kale ah kuwa u shaqeeya. Boqortooyada Ingiriiska waxay caan ku tahay MI6 waa wakaaladda labaad ee ugu caansan muqaadaraadka caalamka ka jira ama sirdoonka. Dhammaan hay'adaha kale ee liiska ku jira MI6 waxa ay ugu horreyntii wax ka qabataa arrimaha dibadda iyagoo arrimaha gudaha uga tagtaa MI5. MI6 waxay ururisaa oo ay soo baartaa macluumaadka dibadda, waxa ayna diiradda saartaa macluumaadka la xiriira argagixisnimada, hubka nuclear-ka iyo ka ganacsiga daroogada, dambiyada abaabulan iyo howlo kale oo halis gelin kara danaha boqortooyada Ingiriiska iyo amnigeeda. Waxay sidoo kale xiriir la leedahay hay'adaha kale ee sirdoonka shisheeye sida wakaaladaha Bariga Dhexe. MI6 waxaa la aasaasay in ka badan 100 sano ka hor, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah hay'adaha sirdoonka ugu da'da weyn adduunka. Diiwaangelinteeda ayaana ah mid fog oo aan la taaban karin. Si kastaba ha ahaatee, sanadihii la soo dhaafay waxa ay ku lug yeesheen murano la xiriira sida ay u qabtaan howlaheeda oo ay inta badan ka soo gaareen magac xumo aad u weyn. Waxaa jira warbixino sheegaya in hay'addu ay adeegsato jirdil iyo lacag aan caadi ahayn. Awoodahan ayaa ka dhigaya mid dunida hormartay sare u qaadaya iyadoo loo isticmaalo ujeedooyin kala fog sida cabsi gelinta iyo been abuurada sumcadaha lagu siinayo dalalka ku horumaray sirdoonka ama basaasnimada. MI6 ayaa ku guuleysatay basaasnimo iyo qorshayaal in muddo ah la dhisayay kuwaasoo ka dhacay dhammaan adduunka. Mahadsanid. Haddii aad ka heshay muuqaaladeena, fadlan subscribe saar channelkeena si dhowna inoola soco.